leeg bay ku yeelan kartaa ardayga haddii uu guriga marka uu tago waalidkii hooyadii mise aabihii ayna ahayn qof ama cid quraankii kariimka ah akhrinaya diinta islaamka barashada ku mashquulsan amaba laga yaabo waalidkii inuusan ahayn waalidiinta kamid ahayn waalidiinta masaajidka ku tukada oo ku xiran canuga sidee bay u saameyn kartaa in ay تحفيظ القرآن كما القرآن كحفظين تيسا أي أفضل ذاته معناها ما لقي يا بعنوجي إنه أوقاته أبيوز جرا ما أوقاته وحن إن والدين تي يجي إن الربين إن السمايان أين أحين وح يجي السمايان وأرضي أما عنوجي وما تقنا وح لو هو لو قص بينه تان. صحوي بارك الله فيك قضب كايسة وقضب مهمة. هدي عن والدك حق سفير والدك والله مد وحويان المقرن ساي diintii garan hayo oo ka war hayo oo masaajidka ku tukan hayo ka war qabo oo dacwadii diinta ku jiro oo sadaqadii masaajidka iyo maarta horiis ka war hayo iyo mid waxa jiro ma garanaysaay masaajidkana shughul aan ku lahayn diintina aqoon weyn baan u lahayn laga yaabo kitaabka akhriskiisa iyo maarta farbar iyo midna dugsiina la geenin horta ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku isku mid kama dhigin arintaas iyada marka door bay ku leedahay ilmaha hooyadiis ay quraanka ka dhageysanayso oo ay u marinayso oo ay caawinayso iyo ilmaha kale oo aan haysan arrinka isku mid maaha marka kan salaad tukanaynin waalidkan salaad tukanaynin oo isaga maartay diintii aan shughul ku lahayn ilmihii ka saaba haleynay waayo waxa la yiraahdaa ilmaha saddex baa tarbiyeysa mid waxa weeyaan waa inaad meel ma garanaysaa geeso ugu tarbiyay oo maartay mujtamac iyo bulshadii iyo dacwad iyo diin meel ka socotaad geeso midna waa uswo iyo qudwo oo ayaa noqotay waa ilmihii guriga markuu tago iyo waalidka haday yihiin kuwa qudwo uswa way caawisa hadiiba uu gurigi isaga qodobka isaga uswada uu waayo ilmaha isaga sidoo ku badbaado adkaanaysa haduu aabuhu yahay mid salaada aan tukanaynin hooyadu ay tahay amaba yihiin guri 24 hours TV ka daaran yahay laga daawanayo filmaan laga daawanayo maartay movieyadan maartay ka socda meesha ama cajalada loo soo karinayo oo loo daarahay ilmaha isaga waxa way qulubtiisa way qalalaysaa ashir quraanana ma baran karo ilmahana lama socon karo kalento marka waxyaabaha maartay muhiimka ah waa in waalidku usoo noqdaan usoo macna waxaan ka wadaa kuwa lagu dayan karo inay noqdaan toosan iyaga hadii ay qaloocan yihiin ilmahoodana iyaga sabab noqon kara abuhu sigaarka cabo wiilkuna barti sigaarku cabaya hadii abuhu uu salaada ka tago wiilkuna barti salaada uu sahlanaya marka ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo maartay waalid wanaagsan oo toosan oo caawiyo ilmahooda oo maartay ay ku daydaan hanaga dhigo sheekh sidaynu ognahay cilmiga laba qayb ayuu kala baxaa mid maadi ah iyo mid diini ah midka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu yiri talib ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima waxa cilmiga in la barto la raadiyo waa waajib waxa uu ku yahay muslimiinta marka ka waran qofkii canugiisa intuu school dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uu dhameeyo jaamacad uu tago laga yaabo in jaamacadaas uu ku soo dhigto lacag riba ah oo ma taqaana waalidkii isagoo raali oga ah canugu inuu soo dhameeyo waxbarasho ayna ahaan ma taqaana mid diini ah oo diintiisii noloshiisii adduunyo iyo aakhiraba mid wax uga tarayso ka waran qofkaas mustaqbalkiisa dambe xataa hadii wax uu barto oo maadi ah noloshiisa dambe ma laga yaabaa in saameyn ay ku yeelato dayacitaanka uu dayacay cilmigii faradka ah waajibka ah in la barto culumna waa culum sharci ah oo islaamka iyo maartay ku tacalluqda iyo diinteena islaamka sidii loo baran lahaa taas iyada ah ayaana maartay asaasi ah midna waa mid maadi ah oo adduunka loo kaalmaysanaya islaamkuna uu u baahan yahay oo nolosha maartay xayaatada maartay muslimiintu way u baahan yihiin مثلا oo kale cilmiga caafimaadka oo kale waa cilmi loo baahan yahay teknolojigan hadda maartay la isticmaalayo waa culum loo baahan yahay muslimiintu inay qaar iyaga kamid bartaan waa loo baahan yahay علومتاس iyada ah ee islaamku u baahan yahay ee bashariyadu iyo horumar ku gaari karto baahida laga maarmaanka ihtiyaajadka horta in islaamku barto waa laga maarmaan laakiin waxa laga hormarinayo mar walba qofku waa in uu horta u yaqaano shariicada islaamka waxyaabaha daruuriga ah inuu garanayo mesela oo kale haduu san garanaynin wuxuu ku cibaadeysto hadee dambi uu kororsanaya waxa kale intuu barnayo waqti ku luminayo waana la weydiin doonaa baritu taas iyada shaki kuma jiro marka waxa weeyaan midka ku raacaya adduunkana maartay horta aan ku dayacaynin aakhirana ku anfacayo waa quraanka iyo maartay kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii aad xifdiso iyagana way ku xifdinayaan ihfad illah yahfadka iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam dardaarankiisi markuu dardaarmay ibn Abbas Soomaaheen
macna waxa weeye quraankan hadaad xifdiso oo diintii iyo shariicada islaamka aad barato oo ku cibaadadayso maartay aad dariiqada iyada saxda u barato ayadana waad ku badbaadaysaa oo adduunka intaad maartay joogto waxa weeye waad liibaani waxay ka xifdinaysaa maartay wax badan bay ka xifdinaysaa marka horumarka in diinta la hormariyo la barto inta daruuriga waliba gaar ahaan qofku waa inuu garanayo waxa la yiri dadkii maartay hore xataa maartay markii biicshiro uu sameeyay ilaa kitaabul biic uu soo akhrista muusan gelin jirin iska dhaaf maartay hadda waxa weeye salaadii baa jaahil laga yahay oo cibaadadii maartay 24 saac la sameeyay oo qofka hadda wadi salaadii maxaa jabiye ma garanayo ma garanaysa weysadu waxay ku asaxdo ma garanayaan ma garanaysaay xalaashi iyo xaraamti dadka ma kala garanayaan waxa waa xaraam waxa waa xalaal marka waxa weeye qofka isaga waxa awla u ah inuu maartay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqti siiyo antaasaan maartay kula talin lahaa walaalaha hadda quraanka baranayaan maartay insha Allah ta'ala ay isku dayaan inay maartay macaanidiisi iyo maartay isku dayaan inay bartaan insha Allah Ilaahay u fududeeyo barakallahu su'aasha ugu dambaysa oo maxaad kula talin lahayd waalidiinta aan caruurteeda hadda kamid ahayn kuwa dugsiga dhigta waxa hadda aan u jeednaa ardayda dugsigan dhigata ha ahaadaan kuwa oo maalin walba yimaada 5 maalmood ama kuwa mataqaana sabtidii axadda dugsiga dhigto ka waran maxaad kula talin lahayd waalidiinta caruurtooda xaafadda ku haysto iyadoo caruurtan la ogyahay inay ku dhex jiraan biyo aan ahayn midii inaga aan ku soo kornay ama mid islaami ah halkan ay tahay meel ay u badan yihiin dad aan islaam ahayn canugii mar walba ishiisa ay ku dhacayso wax diinta islaamka ka soo horjeeda ama aan waafaqsanayn marka waalidiinta caruurtooda xaafadda ku haysto oo diin islaam aan baraynin ka waran ba midaasi maxaad waano u jeedin lahayd waalidiintaas جزاك الله خيرا والدينتا ilmaha guriga ku haysta waxaan leeyahay waa aad iyo aad nicmo ka maqan nicmada ka maqan waxay tahay oo aysan garanaynin oo aysan maartay dareemaynin in meeshan iyada ay joogaan ay ka jirto khayrkan isaga hadda meesha dhex fadhina ciyaalkaas iyaga quraanka xifdinaya inay joogaan macallimiintaas iyaga hadiyaarka inay joogaan marka horta waxa weeyaan dadku iyaga ma baraarugsana wax socdana ma oga sidoo kale waxa garab socdo galaasyo oo maartay farbar ah oo ilmahan kuwan iyaga intay meesha soo gaarin loo soo maxaynayo marka waalidiintaasi way khasaareen waxaana ku khasaareen laba arrimood mid waa mid aakhiro Ilaahay baa kala xisaabtami doona ilmaha ay dayaceen midna waa mid labaad oo ilmihii isaga ahaa oo jahliga iyo maartay baashi ku ilaaliyeen iyagana ma anfici doono oo ku khasaari doonaan khasaare adduunka ah ku dhici doono oo ilmaha ah oo ay ilmihii ka lumo oo uu ka raaco maartay ciyaal suuq iyo qashin waxaan raali ka hayn barito uu la keeno iyo iyaga oo maartay ma garanaysaa dhinaca kale aakhirana ay sugayso maartay kuleetiga lagu dhigi doono ilmahan isaga ah maartay meesha la keenay oo salaadii iyo soomkii iyo cibaadadii iyo diintii waxaan ka garanayn oo guriga lagu haysto TV 24 hour daawanayo oo maartay channelada maartay saa u kala bedelahayo wax maadi ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga fogaanayo 24 hours daawanayo waxa weeyaan way ku khasaareen waalidiinta waxa kula talin lahaa intay goorgoorta inay ilmahaas iyaga ah ilmaha tarbiyan karaan inay masaajidda keenaan hatta haddii aysan quraan barayn salaada ala aqal maartay masaajidka inuu kusoo tukado oo ala aqal mar ay keenaan oo bal diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wax ka barto oo masaajidkaas isaga ah waxaa jira dad hadda un agmara xagga un ka wareegta dhinacana ka wareegta waligood ilmahoodu san imaanin kuwa iyaga haddii maanta la yiraahdo war islaam maxaad ku ogtahay waxba ma kama sheegi karaan waa xaqiiqo weey waana dhacday niman dhalinyaro oo hadda ayaan u taliyay sheegayay oo la yiri kaalay tukada ba waxay dhaheen ba la yiri hadal cajiib waxa weeye meeshii laga rabay inay salaad tukadaan bay waxay yiraahdeen yaanu tukanayna horta yaanu tukanayna markaas Ilaahay baa u tukanaysaan Ilaahay markaan wadankii joognay dadkii maartay nala baabiinayay la waxaynayay maxaa Ilaahay noo caawin waay kaniisadii baa ku shubtay ayagu ma oga magaaladii nala joogan ciyaalkaasi waana la yaqaana hal iyo labana ma aha ma garanaysaa marka kaniisadii baa gacanta ku dhigay waalidkiina wuxuu ka ilaaliyay masaajidkan hadda isaga ah imanayaan marka kuwaas oo kala soo socda jiil cusub oo ciyaal kristana maartay barito noqon kara bilaa diin ah diin ma aaminsan dhahay soo socdo marka yaa laga digtoonaad arrinka isaga barakallahu fiikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس من لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى إن تجهر بالقول وما بينهما وما تحت الثرى إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نقر فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهم أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. guud ahaanba waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta ku saabsanaa dugsiga ama fasalka macalin mahdi ee taxfiidul quraanka. waxaan idinkaga tegaynaa inta aan mar dambe hawada ugu kulmi doono sabtida soo socota hadduu ilaahay yiraahdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.